كولبا وطاي هيسا كلا oo markaasi wadana ay fanaaniinta gobolada waabari hayeen balse waqtiga oo ka dhamaaday darteed ayaan intaasi ku soo gabagabeynaa maamadii halkan taagneed ee nagruumo la socotay dad baa gobolada waabari markay maqlaan ooyaan qayliyaan waxay ka mid ahayd jilayaashii caanka ah Khadiija Ceyr Gaabo oo UK ka timid way fadhi weeday halkan ay soo istaagtay Khadiija ku soo dhaw maareeyaha ayaan markan ku soo dhaweynayaa maareeyaha kadibna xiriirinta waxa la wareegi doono Sharmaarke Maxamed Warsame oo ka mid ah wasaaradda warfaafinta balse waxaan ka horeysiinayaa maareeyaha golaha murtida madadaalada Cabduqaadir Shube ku soo dhaw maareeyaha mudane ra'iisul wasaare wixii aanu wadnay waa dib dhiganay intooda badan waa aragtay noloshay waa beri may samayn masrax laga heesayo aan dilid lahayn caawa waxaan u yeelay inaanu idin barro fanka inaad u adkaysataan oo dhagaysataan waa beri intaas waa wax filmaanta loo oran jiray barasamintada habeenka dhowbaa ka daran waa la jilayaa jilayaashii halkaas ku xireeya waxaan jooga waa ra'iisul wasaaraha wuxuu tegayaa meel ilaahay og yahay waxaan u yeerayaa gabyaaga la yiraahdo ee gobolka Banaadir ma dhici karo inaanaan xusin abwaaniinta gobolka Banaadir gabyaa bedel waa gobolka Amarisiye iyo hadila ku anna gabyaaga waa jeclahay oo aniga gabyaa bedel soo orday maxaa u dhigtinaysaa hali hada ra'iisul wasaare odayaal marti waa isu joognaa habeenka dhow baa ka daran waxba arki doontaa بدل ايه عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بما هدس كالي رهو جيلالكي نوبدو كلها رهو قوغي مركو روب كدعانا واكسو فقايا واقيليا سانو الرهر سيدي رهو كالي نوبدو كلها يا قدومي عمر نرود دورتي وقبل كينا لو قديم رهي وكلانو نهور تعاوى واكسو فقايا مكرفونك مدها لغي دايو أسيدي رهي ودوميه انتا كدب مدن الرئيس الوزاري يقولها وزير هذا برلمانك يا شعبك الصوماليات هلكم فدية انتنا دعوانا السبب وحال نكون سلامة يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وسوغان ما هي أبوان ما هي وانتلا ياي لكن صومالي لان أمانا سيدينو نهان كو أمانا سيدي إلهي نو أبو ريماها وسيدينو نهي يقو أمانا بل أمان تاس إلا قبطة وإلا ودقيست حريات دي بانك بالله بيا وهي الحريات لحنا كي حريات دي حربي إيا دقال إيو لغو هلي حكار عدك داد بدني حبال قلي داد نحولا بيلي إننا حمينو حليها إسقوينو قبل لمدي حورني مركي عن حروني انتو حايسكو نوداي حولها اني درارين حورتا عن كمالا كبير عن حرقونو إلهو وحمدك حسوس عن أرنوينا طلبين نحبات ورحوقي قرن كاننا جمهدية حربية يا حددنا أصارو حرقية نقلا قلي حاب دبايل قادية حرشش بيكيالين حلا ما يسميني حلا ما يسميني حباور كداد كاننا دولة لها حدودها حريا لوغا أوضي حبي إيا كالقعل إيو حيسيه ودان النمو حمر إيا هرقي سبا حكوم ما انت يالا وسؤال حسوس مغالي والبالي إيش هاقا إيشو يالو حبي إيا كالقعل إيو حيسيه ودان النمو يا حمر إيا هرقي سبا حكوم ما انت يالا وسؤال حسوس مغالي إمي كان الصومالاي حل واحد كدقتين قبيالتي حنتا هاي إنا كحرقوتا حل واحد كدقتين انت حبال لقاتو حوق الله يسوقفانو حل واحد كدقتين قرح الله يسوق سوحرو شعبكي اللي حسوقه حل واحد كدقتين فدرال حساسية دادك أولا كلاحرو لو سميه حدوده حل واحد كدقتين سياسيين حيرانو كرسيقا اوحي لابسن إنا يدلكي حراشان حينبا ملكة اللاش ورقولا كليها دينا يجيب سمحيل بان قبل هاي قولوا ميل بينك قليس حينبا ملكة اللاش حل واحد كدقتين حق الديد حق الديد حجة ميل لتاقنو
xal waxaad ka dhigateen xukuumaddii la dhisaba xaniinyaha aan qabanno xagna yayna u nuuxsan tan xumeetanna xaasi xal inoo noqon mayso isku soo wada xoodhi hadda xeere gurteedii iyo xaasilkii ha timaado haddii aan la isxurmaynin xaqiiqdii la heshiinin dadku uu isqalbi xaaran xilligii la soo mariyo xumaantii la iloobin ilaahay xariggiisa iyo xidhiirkiisa la raacin xukuumaddaa talinaysana xaajadeeda la yeelin dalkan waa la xaraash dawlado xoog badan baana xarka looga hayaayoo u soo xusul duubi xaynba meel bay u goosan waa xaqiiq hadalkaas haddii aan xabaal galo ii xasuusta warkaa taariikhdaa xusi doonte horta taa ii ogaade tan kale ammaantii ugu dambaysay weeye oo soomaalidu lahayd ayala wuxuu yidhi soomaalihay qarribaney qaxar iyo dhib badaney qabyaaladda kufaanaay qarankeeda dumiyaay iyadu isquursato shisheeyaha qadariyaay gumaysaha dalkeeda kala qaybinaayiyo kayrkeed ma aragtee isu qooro weyne qaarad baaba dawlada nin quri u taliyaa idinkoo hal qoyso rixin iyo qaraabaa konton qolaysu qaybsaay konton qolaysu qaybsaay muqdishoiyo hargaysana laba qaran ku sheegay dhulkaagu waa qani webiyada qulqulayaan qodol maysa beeraha qurigay badaha yaga kalluunkeeda qaaligaa qabsan maysa hawshee qarafada ka jeceley qaxootiga ku yaaxaay qaramada midoobiyo idaacada ku qayliyaay qaramada midoobiyo idaacada ku qayliyaay tahriib qarash ku bixiyaay markuu magafa ku qabsado amuu qaarad kala tago nolosha qawadaanna qoomamada ku ooyay alla maxay soo watay qoomamada ku ooyay qowlkii rasuulkiyo qur-aankii ilaahay midna kuma qaboobaay iimaankaa ku qoomane qaabkeed ku noolaan imisaad hooyo qaaliya ama qayrab soo kacay baaruudda qiiqdiyo qaraxaad ku layseen qurub u kala go'ay qisaba qiso kale ka daran raggii qaranka soo maray xilkiisa soo qabtaa maanta qaylinaayo qoyskoodii shiriyo kicinaaya qabiile qasadkoodu waa maxay bal qiyaasa dadweynow qarannima ma reerbaa siyaasaddu ma qoriba mahmaah qaaliyaa tidhi ninba qumanihiisaa ilan qoorta ugu jira soo khasaare maaha ummad yahay isdaba qabo qabri baad gelaysaan qiyaamaa dambeeya allaheenna qaadira waxba kama qarsoona inta qoriga tuurtaan qabyaaladana aastaan qarankeenna noo dhisa yaambada aan qaadanno ciiddeenna noo qoda qani baynu wada noqon qarafada aan dayne madaxdeenna qarankana qumanow farmaajiyo qayra aan adeecno yaynaan khilaafin qayrkeenaan gaarne nin kastoo xilkaa qabta yaynaan khilaafin qayrkeenaan gaarne qaatawaanadaydaas qofkii diidayaalkii ilaahow inaan u sheegay ka mara dhahow ilaahayow markhaati kahow inaan u sheegay maase yar baan ku soo koobayaa walow la yidhi wakhtigaa gaaban imaaraadkan koreetiya kenya kolla wayd wada shawray kuwa eebakadeeday oo kurtumoo soomaaliya dawladda kufinayana kortaanay ka kaxaysteen nayrobaa lagu kooda kiish lacagaa la siiyo kumaakun baa loogu qaybshay kelmad bay ka saxiixeen war kelmaddaasi maxay ahayd talow waxay lehay khayriya farmaajo qarankii way kubciyeen oo kor bay hawsha u qaadeen waa inaad kala tuurtaan kenyana badda siisaan soomaalina ha isu keenina diinba kaynti ku qooqan kismaayo iyo awdal kaalmaha u dhaxeeyana anigaa idinka kiraysan kuduraad baan idin siin war kistiinna iska qaata war maxaa idinka deeday kelmaddaa way aqbaleen markii kaa la ogaaday khayre iyo farmaajo korun bay u istaageen kariimkoodii abuuriya ilaah bay kaashadeen koonkii bay ku wareegeen kiiskii ay qoraanba kufeermaa la dhahaa kurtumadii soomaaliya oo dawladda kufinaya kufaartii ka adkaadoo kurkii bay ka jareen raggani wayna kabeen hawshii way kamileen qarankii way kubciyeen soomaalay kulligiin kol labaad ha la doorto war kol labaad ha la doorto war kol labaad ha la doorto intaas waxaan ku haray saaxiibayaano ii kaadi cabdullaahi suldaan timacadde abwaankii caanka aha qaaliga ahaa yaa 760kii waana ninkaad ogtihiin suugaantiisa
dawladdii wax soo dhoweeya iyo wax la hadla iyo wax ixtiraamuu waayo gabay dheer buu soo tushaa gabaygii waxaan ka hayaa ri dhashay baaba la ysaga daraa rubaxa jiilaale mar riwaayad baa calanka soo ruuxna kuma raayo war dawladda nabad iyo nololay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intaasa idin ag taalo abwaan bedel aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii ayaa la soo gaaray iyo khudbadihii ninka halkan fadhiya waa shabac waa farsamadii golaha murtida iyo madadaalada horey u ahaa haatanna waxa uu sugayaa golihii murtida iyo madadaalada la dayactire mar kale inuu farsamadii qabto markana sharmaarke maxamed warsame ayaan ku wareejinayaa mahadsanid ra-iisul wasaaraha dalkeenna mudane xasan cali khayre mas-uuliyiinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalkeenna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda iyo midnimada ummadda soomaaliyeed guddoomiyaha gobolka banaadir mudanayaal iyo marwooyin maqaam walba oo halkan ku fadhisaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeenka qiimo badan oo aan isku imaan lahayn ma jirto habeenka caawa ah innagoo ka hadlayna 60 sano kadib midnimada ummadda soomaaliyeed 60kaas sano soomaaliya waxay heshay halyeeyo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalkeenna intaa kadib mudanayaal mar kale waxaan idinkaga mahad celinayaa joogitaankiina iyo fadhigiina waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan daqiiqada kadib khudbadahaan bilaaban doonaa hase ahaatee qadar 10 daqiiqa kooxda wacyigelinta ee wasaaradda warfaafinta iskumaan ayaan u yeerayaa inay soo koobaan 10 daqiiqo oo keliya iskumaan abwaan aadan shimbirlays inta iskumaan soo socdaan muhiimadda habeenkan leeyahay waxaad ka garan kartaan 1 milyan dadka badan oo Soomaaliyeed ayaa baraha bulshada wasaaradda warfaafinta Soomaaliya kala socda munaasabadan sidoo kale waxa ay tabin toos ka tahay telefishinka qaranka Soomaaliyeed labadiisa qaybood qaybta wacyigelinta iyo hanuuninta dadweynaha loogu talagalay iyo channelka koowaad radio Muqdisho codka jamhuuriyadda ayaa sidoo kale laga dhageysanayaa daawadayaasha iyagana waxaan leeyahay ciid wanaagsan iskumaan halkani waa maslaxii muraayadii ummadeenna matalaad iyo heeso iyo murti baa ka baxaysay muranna loogama baahna waa kooxdii iskumaan oo cid kastoo kala maana iskumaan ka dhigaysta cid kastoo kala maana iskumaan ugu baaqday mudanayaal iyo marwooyi miyirkiin iyo dhegihiin iyo maskaxdiina nasiiya oo iskumaan ku dhegaysta war heede war shugul kulli war ma fiicanta wax sandiid war waa ilaahay mahadiisa bal haye lanaan weeye bal war hal waa la dhahay waa ii kala degan tahay malab iyo maraq baan lagu hayaa gacmaha baa kula jiray ii warraba maxaa xaggaada ka cusub war waa ilaahay mahadiisa haye aad baan u fiican haye warku waa kaas adigu bal war si wanaagsan aad iyo aad baan u barwaaqaysanahay waa adigii dee siyaasadda iyo hawlaha jeclaaye war xaggee bay wax kuu marayaan maxaad haysaa haye maantay ugu darray maanta horta anigu siyaasadda iyo amuuraheedu horta waa isaga baxo waad ogta haye maantay soo ugu darray haye war uguba haye war ku haya si fiican magaalada iyo raadiyaasha iyo wax oo dhan baan soo mara maanta haye ciidamadii farmaajiya khayre yaa dalka ka gees xuduuddii qabsadoo ku duulay baa la lahaa haye ciidamadii khayre iyo farmaajo ha oo ma ciidan bay lahaayeen war haddaan ogoyna waa leeyihi haye sawagaa ciidankooda anigu ma araga tiifiyadu waxay lahaayeen tiifiyadu waxay lahaayeen adigaan ka warqabine ciidamada farmaajo inay leeyihiin iyo khayre inay leeyihiin lambar bay u sameeyeen nambar bay u samaysteen diiwaangelin bay u sameeyeen haye dhiiggii baa laga qaada haye indhihii baa laga qaada haye farihii baa laga qaada haye dharka la eg baa xataa cabirkooda la yaqaan marka dadka xoolaha leh xoololayda marka anigu reebaadiyaan ahaan jiray si wacan xoololayda hadda xoolahaas sumad buu ku dhigtaa marka dadkii baa sumadna waaba u yeeleen saaxiibi dhegayso haye ciidamada garabkooda astaanta ku qoran noocee bay ahayd calanka jamhuuriyadda soomaaliyeed baa ku dhegan haddaba calanka jamhuuriyadda soomaaliyeed sidee baad ugu tilmaantaa inay shakhsiyaad leeyihiin madaxda dalka way ku mahadsan yihiin arrintaana waa arrintii la doonahayey
soddonkii sane ee la soo dhaafay dalkeenna waxaa dib u dhigay lama ogeyn ciidankeenna tiradiisa inta uu leegyahay lama hamin maxaa la yidhahdaa wax information rasmi ah lagama hayn si loo helo mushaar joogto ay helaan si ay u helaan xaquuq si loo ogaado tirada ciidanka aanu leenahay ayaa arrintaa loo sameeyey arrin wanaagsan bay ahayd midda kale ciidamada aad tiri dee xuduudkii bay qabsadeen dee taasina waa qodob dastuuri ah xukuumadda dhexe ayaa iskale in la ilaaliyo xuduudiyada midda kale waxaan kuu sheegayaa dee 60 guuradii xurriyaddeenna ayaa loo diyaar garoobhayaayo si feesto weyn ay u dhacdo ayaa ciidanka saa xuduudka loogu daadaya waana dastuuri waa sharci bal inantaan aan la wadaagno haye hadda war heedha bal ninkan weyne intaa ilaahay la ekaysiy bal wuxuu ku hadlaa maqal baa la lahaa baa la yiri waa la sheegay war heedhe weliba rag waaweyn baa lahaa rag waaweyn oo adigu maskaxdaada xaggee ku maqnad markaad waa la yiri iyo waa la sheegayo war shalayto markay ciidamada Kenya ay duqeeyeen geela Soomaaliyeed ee ilmaha caanaha looga lisaayay ee gabdhaha Soomaaliyeed gaariga kaaraha ee xabada aysan karin dhagax ay la hortaagnaayeen oo ay lahaayeen waryaa Soomaaliyeed war aawa geesiyaashanadii difaaci jiray Allahoogayo hadday nool yihiin sidan noloma galeen wiilasha hadday wiilasha nool yihiin sidan noloma galeen gabdhihii markay lahaayeen xageebaad ku maqneed maskaxdaada ma fikireen miya maxaa wax fiican ku diiri maanta markay ciidamada Soomaaliyeed ka gees xuduudaha ay difaaceen oo cadawgooda intay saas u laayeen agta ay mariyeen baa waxaa la yiri farmaajiga khayro war ilaahay baa intaa kula ekaysiyo fikir oo maskaxda ilaahay ku sii isticmaal hay xasuusin alla ilaahay baarinkii islaantii waa yeelka ahayd oo arkahay oo hasha irmaanka inta diyaaraddu ka dishay weliba ooyeyso taangiga dhagaxa la hortaagnayd oo lahayd Soomaaliya idinku jabay ma gurmadkeediba war bal hoo u jawaab daljirow ninkani waa dhunsan yahay xogu hayaa iska yar 60 guuradii xurriyadeena si loo ilaaliyo ummadda Soomaaliyeed ciidamada xuduudka la geeyay ee dastuuriga ah iyo daljiro war uusan ka haynine war waxaan sheegay asaga iga marqaatiyo adigu maxaa ahay adigu horta Soomaali ma tahay ha Soomaali ba tahay Soomaali dhalay baa ahay waliba tani waa degniin qaran dilaal iyo malaal iyo isku diraha kala dila inta uliya diirka waa dabargo'oodii xugun mala danaystana ku dar cadowga jaajuus xooggii dalkaan ahay deegaantii geeskoo dib u curatay baan ahay aarkii dunida afrikoo soo dangiigsadaan ahay seeftii darwiishkoo deelaysan baan ahay dun xariir ahaan ahay dir Soomaali baan ahay deegaantii geeskoo dib u curatay baan ahay dihashadii abriil iyo calankayga dooggaa kuwa ku diirsadaan ahay xooggii dalkaan ahay hawadaa dushaydiiyo difaacii baddaan ahay darbigii xuduudkiiyo gaashaan dhablaan ahay wax kastoo damaaciya maanta diiday odhan karaa xooggii dalkaan ahay dubba cadowga jabiyoo darba kulul ayaan ahay kaalmaysta diintana dalla kula qiyaamana xooggii dalkaan ahay hal af buu dalkaygana ku hadlaa dadkiisaoo ka midaysan diirkiiyo diinta iyo dhaqankaba qalcadaha dagaalka iyo diryanka iyo rasaastana iska daadad nooloo arigoodu kama dido xooggii dalkaan ahay dowlado awoodloo laga wada dambeeyo miigsamada duuliya maraakiib dagaal iyo dabaabadaha culuslay gumayd daaduumiyeen oo gumaysigii ka diideen doolli haan ku koray iyo nacas kama dagnaan helo xooggii dalkaan ahay dal kastoo adduunkaa wuxuu dow u leeyahay inaan danaha qaaskaa hoos loogu daakhilin dariiq loo maraa jiro dalkayguna sidoo kale xooggii dalkaan ahay
dal khayraad leh baan nahay dad abaal galaan nahay aan ka maarmin dunidana ixtiraamo dariskana dardaar warinna yeelayn iyo damaaci baadilah daalinkana u kaalmayn dulligana aan qaayibin dulmigana ka dhiidhiya xooggii dalkaan ahay boogta diirku maray iyo kenyaan u degayaa boogta diirku maray iyo kaydkiiyo diiwaanada taariikhda duugga ah dib u raac xisaabaha doqontii waxaa tahay duudsiday barbaarto naylaan doonayaa tiri xooggii dalkaan ahay kibirkiiyo damaaciga quurtiiyo ku-digashada doobtiiyo xawaaraha doobigaaga buuxaad ka dareemi doontaa xooggii dalkaan ahay dambarkiiyo labeentiyo degallada ugbaadkiiyo doogga kuu hiraayiyo dalawada rag baa lehe daleel maaha hadimaah xooggii dalkaan ahay haddaad diiddawaanada waxaad haysa soo daa kaa digtooni aniguna xooggii dalkaan ahay haddaan dabacsanaa shalay maanta waa digtoonahay dagaalkaygu waa xeel dabaashaydu waa quus dareenkaygu waa farow daymadaydu waa aar diyahaalkaygu waa sharaf doonistaydu waa nabad damacaygu waa nolol waa dayaxa hankayguna xooggii dalkaan ahay alla ilaahay dooda hadalkaagiyo waa ideeqay waxaad ii sheegtaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya xagee laga qortaa adeerow ikahay gacantay qabo qoondha iyo xirada magacaaga saddexan ii sheeg magacaygu waa haddii ilaahay ku yidbaayo dal jir danaysta diide dalka badbaadiye magacayga maanta laga bilaaba igu raadi meesha lagu diyaar ma u tahay hadda magacaagu hadda kadib inuu ka bilowdo dable dal jir xoogga dalka Soomaaliyeed inuu ka bilowdo magacaagu maanta laga bilaabo diyaar ma u tahay diyaar welcome bismillaahi raxmaani raxiim adduunyadu waa midaan dushadu mashquul ka tahay allaa tiirkeeda muday macnay ku salaysan tahay qofkii ka macaashi kara macluumaad bay sitaa makhluuqaad baa ku nool misena waa kala maqaam dadka ugu muuna weyn ismana ma ogaan karaan hadday kala maqan yihiin maqsuud ma ahaanayaan hadday kala maarmayaan marwiya shaygeedii baa wadaan isu meeriyeen waxay magac leeyihiin amay meel gaarayaan intay isku milan yihiin mas-uul waxaa looga dhigay caqliga maankooda galay inay wax ku maamulaan mashaakilka caalamka ku maareeyaa la yidhi shuruuc baa loo mulkiyey cadaalad ku meel marsho xaq miisaamaa la yidhi xuduudana loo mitri intaasina waa mamnuuc intaasina waa mabaax jannaad ku macaashataan inaad mudataan cadaab midii aad doorataan jidkaas baa loo maraa minaashkaa loogu qoray reerkiisa bela soo martuda halaag lala maagan yahay basharahoodaa lumee sidii maamuuska iyo masaalixdiyo dantiyo manaasibka noo ahayd macbuudku inoo cayimay intaad ismaciisataan cilmiga kala meersataan wanaag ku macaamishaan ismaelgeliyay ahayd haddaadu hareer martaan hanuunbaa soo mutuxan biriiqaasaan wataa mudnaan gaaraan rabaa warkayga haddaa la maqal kun baan maytaynayaa ismaandhaaf aan dhammaan muxnada aan laga gudbayn sarkoodu masiibo yahay maxaa lagu gaarayaa maqaawiirtii dalkow maqaamkii odayadow muftinay diinta iyo masalakii loo hayow musbaaxdii qarannimada gabdhaha yaga miiganow marka ay murugsan tahay intii la maciinsadee wuxuun maarayn karow mar wooyan mudanayaal haddaan idinku maqnayn talaa lagu meel maraa maxaynu guddoonsanaa talaa lagu meel maraa maxaynu guddoonsanaa xornimo ma ka maarannaa dhammaan ma mididina baandeeq waa taas godlane diyaar midi raacinaa haddaad maya leedihiin awood kumaroorsigaan intaad meel naga dhigtaan haaneedka mid baa hayee intaad u miskeedisaan ninkii xilu moonayow haddaad tahay macallin sare cilmiga moolkiisa tegey in loo magacaabo mudan adoon muruqaaga dhugan adoon maatida ku tuman adoon miinooyin dhigin adoon miidaamis gelin adoon naga dilin mid nool xaq baa reer hebel ka maqan adoon meelahaa ka dhihin anaa lay maagan yahay adoon maqashay bulshada muddadu waa saa dambe imow madasheenna guud meeshay taal doorashadu rasiibkaagana magow miyaanay doow ahayn maxaa lagu diidaya ma dhiigeenna macaan hobalayey hobalay hobalayay haya hobalayey hobalay hobalayay haya
dowladdani waxqabadkeeda iyo qaran difaaceeda qababaalka noo muuqda waa lagu qancaayaa qabka soo noqdaya heybadaya calanka qiimaysaan baasaboorka qulubkii ka baxay caalamkuna qaatay u qidmaynta shacabkaada iyo qaabkay u adeegto ciidamada la qarameeyey ee hawsha qabanaya dhaqaalaha la soo qabya tiraasana u qaad maayo qarashkaya mushaaraadka buxu waa xisaab qoraan qashqashaad iyo suudaahma iyo malaqiyaanaad shaqaaluhuna waa qanacsan yahay waana qirayaano qalbigoodu waa negiyahey khayr allaha siiyo kala qaadi maayaa intii fulisay qaynuunka maqarsoona waxay ay qabtaan qayb kastooy tahay qayma inta shacabkaa ka mudan hadal qof sheegay qodob kale haddaan soo qadimo runtana qeexo alla lagama quusto asaaquul furaad badana soomaali quruxdaadu waa qawi israacdaaha qarib iyo rafaad iyo qax iyo qalad la joogteeyo qabqablihii qabiilkaya dagaal ooge qalalaaso qalqalkiyo dhibaatadii haddii eebba naga qaadaay khilaaf looma baahnaya rabshayo qayle iyo buuqe khayre iyo farmaajo ay rabaan shacabka qiiraysan ayagu qalmaan dowladnimo una ah qowsaara qaabka loo hogaamiya dalkana fahamsan qaynuunka qoraal iyo qiraal iyo qalbiyo ficili qowlkood qarash kuma dalbaayaan xilkaa qoorta loo suraye qarannimo inay soo celshaan waayo qorshahoodu qoloqolo si aan uga baxnaya beel wax lagu qaabsho qof kastaba codkeed doorashaa oo la qaban qaabsho qof kastaba codkeed doorashaa oo la qaban qaabsho qariya nabada nolol qiimo badan qaran barwaaqaysan qaadir inaan ka barin oo hildhaa lagu qaboobaahe qarbudaad ciddiina la rabtee qanacsanaan diido qaluubtooda iyo bowdejiye fahamsii khayraadka walaxaadha noo soo qadarinna ma qabaayanay dowladdan horumarkeedu waa iska muuqdaa maqaarsaano oo waxay qaabteen taariikhda quumaana qorto maqaarsaano waxay qaabteen taariikhda quumaana qorto aad iyo aad u mahadsantihiin aad baad umahadsantihiin iskumaan aad baad umahadsantihiin iskumaan wariye haddii microphone loo dhiibo waxa waaye daqiiqada ma celinayaan marka aad umahadsantihiin iskumaan mudanayaal mudane ra-iisul wasaare mudanayaal iyo marwooyin mar kale waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan waxaan u yeerayaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية وزيرك مالية وزيرك رماه قدها وزيرك عيارها يدلني رضا وزير رضا كله حلبانا ذا لبادو قله مسؤولين تعاون نقلص وقيب قشة مناسبة دان ده فرقة دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب مدريال يمروين عاوة وهبين فرحات او هل كان لغسو ده فريو مناسبة ده لحدن قورة ده تاسو قبل كبنادر وقيب كيهي إن شاء الله تعالى مسؤولين تكلا قدسن هل كان عاوة نقلص وقيب شيء وحي هل كان إن شاء الله كسو جديد دونان ديار قروقو كو آدن وديار قروقا مناسبة دا اللي حدن قورة دا حلقي حرية دا وإيسو دو دا بلاك يرأينو قدم لحدن سنو جرسد كده ولا ليال
Eh,